tani waa Dowlacado in badan oo shacabka magaalada Dowlacado lagu soo hayay dhibaatooyin cadaadis isbedel ka hor taas oo ah magaalo istaraatiijiyad ahaan muhiim u ah deegaanka Soomaalida ahna magaalada ugu dakhliga soo saarka badan gabi ahaanba deegaanka haddana ma aysan helin waajibaadkii ay ka mudnayd inay hesho adeegyada kaabayaasha bulshada oo uu ka yahay adeegyada quwadda korontada 24 saac ee dawladda dhexe maamusha kaas oo ay ka aradan tahay haddaba shacabka ku dhaqan Dowlacado sida ay sheegeen inay baahi weyn u qabaan leydhka maadaama oo ay degmadani Dowlacado dhacdo dhulka kulaala ah oo cimiladiisu aad u sareyso taas oo ku kaliftay inay janaareetaro shakhsiyaad isxilqaamay gaar u leeyihiin magaalada saacada kooban leydhsiiyaan 2009 kadib degmadan ma ayna helin wax leydha kale degmada Dowlacado waa degmo aad iyo aad u ballaaran markaan leeyahay aad iyo aad u ballaaran ilaahada dakhliga kaliya 3 degmo ee deegaanka marka laga hadlayo waa degmada ka koow ah yaan dhihi karaa dhanka dakhli soo saarista guud ahaan deegaanka iyo dhalinyarta degmada ayaa iskood isu xilqaamay marka waxay sameeyeen iskaashatooyinka ay sameeyeen awgeed ayay maartay matooradii ku soo iibsadeen saas marka dhalinyarta ay kaga falceliyeen baahida degmada iyadoon ka wada jawaab karin 2009 ilaa hadda ma ayna helin degmada Dowlacado leyd dawli ah oo maartay ma ayna helin waxay ku shaqaysanaysaa waxa weeyaan shacabkeeda ama dadkeeda waxay ku shaqaysanayeen waa leydhka private company ilaa hadda ee motorada dhalinyartu maartay iskood isu xilqaamay ay keeneen weeyaan wax adeega marka ma bixinayso meeshan saas maartay dadku ay u garan laayihiin maadaama motorada ay ku xiran yihiin dhalinyarta iskood isu xilqaamay maartay iskaashatooyinka maadaama dadku ay ku xiran yihiin kana ayna wax faa'iido ilaa hadda aamineen inay faa'iido ka soo soconin saas dadku u iloobeen marka gabagabadiina laanta quwadda korontada halka ay dhacdo magaalada Dowlacado oo dad badan oo magaaladaasi ahi aysan aqoonin halka ay ku taalo waxaan kula kulanay wiil shaqaale hoosaad ka ah ani kama አንድ አመት ሆኖኛል እዚህ ሀገር ላይ ከ2009 ጀምሮ ያለውን ዳታ አሰማው እንጂ አላየውም ከ2000 waxaan halkan imid muddo ku dhawaad sanad ka hor ilaa hadda wax shaqo oo qabana ma jirto kaliya waan iska jiifnaa moraalkaygu ma fiicna inaan shaqayno ayaan halkan u nimid waxaan ka khajilaa inaan shacabka dhexdeeda u baxo sababtoo ah ma asiino wax adeeg leertariig ah oo ay mudnaayeen shacabkan inaan siino maalin maalmaha ka mid ah waxaan tagay bangiga waxaan tusay mustaqbalkayga si aan lacag ula baxo waxay dhaheen kor ayay ii fiiriyeen ma jiraan shaqaale weli ka shaqaysa warshada leertariiga ilaa hadda waa wax lala yaabo ay yiraahdeen waan isku khajilay arrintaasi arrin aad moraalkayga u taabatay ayay noqotay anagu waxbarashadii soo baranay inaan adeeg bulshada siin ay yahay ilaa haddana moraalkaygu ma fiicno waxaan filayaa in shaqaalaha halkan iska joogi ay moraalkoodu aad u liito kadib ayaan khadka taleefanka kula xidhiidhnay maareeyaha shirkadda quwadda korontada ee Itoobiya qaybteeda godadi ee Dowlacado hoos timaado injineer Mukhtaar waxaan sheegtay magaalada Dowlacado waxaa jirta in muddo hadda dalaaleed bay ahayd waan gartay waxaa jirta magaaladaas generator baa u shaqayn jiray oo waxay ahayd diesel magaalooyinka dieselka leerka ka helay ahayd waan gartay generatorada markaa waxaa ku imaaday cilad baa ku timiday oo maarka laba generator baa kiilay laba generator way halaadeen laba generator way kala dambeeyeen adigu markaa labadaba way kala daroodeen waxaa jirta generatorada hadda aan isticmaalno waa generatorada maaragtay xilli hore soo maray oo maaragtay waxay leeyihiin spare parts-kooda iyo hawlahooda aad adag yihiin waan gartay marka in markaa waxaan aad ugu dadaalnay inaan helno generator maaragtay waxaa dayactirkooda iyo spare parts-koodii markaa waan weynay waan gartay generatorada hadda waxaa weeye shirkadda ma soo iibsan kartaan generatorradii oo waa la joojiyey waan gartay iminka xalku muxuu yahay iyadoo markaas sida ay tahay dhibaatada xaggiina xalka hadda waxaan rajaynaynaa kulka waxaa laga aan ka dhowsugaynay oo aan rajaynaynay inay maaragtay u bilowdo markan hargeyle maaragtay hydrolada 24 saaca taasoo sanadkii hore la dhagax dhigay macalin stationka meeshii laga dhigi lahaa iyo maaragtay waxoo dhan tarbiyadii lasoo dhamaystiray waan gartay inay maaragtay xaggaas bay ka heli doontaa mustaqbalka dhow haddii la marka projectkaas maaragtay uu qabsoomo ma sanadka soo socda lagu bashaarin kartaa bulshadu inay adeeg leertariig heli karaan mise wax inta ka horeysa waxaan rajaynaynaa haddii la idmo cilada hadda waxa weeyaan magaalo aad weyn weeye waan gartay generatorada hadda aan xitaa aan qoldo aan meelaha hydrolada lagu wareego generatorada yaalina waa kuwa yar oo awoodooda aad u hooseyso waan gartay marka waxaan rajaynaynaa maaragtay anagu xal maaragtay qoldo nooc kastana marno oo maaragtay deegaamada kale ha noqoto ama deegaankiina dhexdiisa ha noqoto nidaamka generatorada kale intaa ka horeysa aan u helayn waan gartay taadada warina bilowna waan ku dhex jirnaa wixii maaragtay hadda maaragtay ma qabsanaa insha Allah durba waan